muddo hal sano ka hor ah ayuu gaari la gadoomay wuxuuna ka burburay qaybo ka mid ah jirkiisa. Axmed Aadan Xasan 45 sano jir aabba u ah 6 caruur ah oo uu korintooda u waday gaari loori ah. Hadda waa dhulyaal aan meelna u dhaqaaqi karin kadib markii uu la rogmaday gaari uu waday keenayna in gacanta sinta iyo dhabarka dambe uu ka waxyeelooba. Mushkiladda iyo dhibaatada Axmed haleeshay kana dhigtay mid dhulyaal ah waa mid uusan ka dawoobin duruufaha noloshiisa ku gadaamana awgood. Waa kan Axmed oo telefishinka 5 Somali TV ugu warbixinaya dhibaatada la soo diristay. waa Axmed Aadan Xasan waxa ila gadoomay baabuur gacanta saan u jiidan waaye wax laf ama ku jiro iyo lugta waaye lugtana santa waaye dhabarkana waa u jiidan idanka ifkeega intaas waaye marka kormo gaarigan kula gadoomay gaarigan adimada waxa weeye hal sano oo kala waa meheran daryeel caafimaad meher waayo qarash la'aan awgeeda qarash ma haysto wax qarash iga dhiibayna ma lahan intaas ay keentay marka dhibkan halahan aan ku joogo halkan sano. Axmed hadda waxa meesha ka baxay caruurtii uu shaqaysan jiray ee 6 caruur ah ee uu korinayay maadaama uu yahay nin dhul yaala wuxuuna sheegay in caruurtiisa ay qudhooda gaajeysan yihiin maadaama isaga oo ahaa aabihii u dhaqaaqay isla markaana muruqiisa ugu shaqaynayay uu hadda yahay mid dhulka yaala waana duruuf aad u weyn isla markaana uu dareemayo in dhibaato xoogan ay tahay in asaga oo dhibaato ay haysata sidoo kalena caruurtiisa ay imanka dhibaatada ay ku sugan yihiin maadaama uusan u shaqaysan karin. marka nin masaakiin aan iska ah oo ilmihiisa u shaqaysana ilmihiina hadda ma u shaqayn karo waayo wax daryeel aan hadda ma haysto ana saana ahay oo mareel aan u ahay ilmihiina macnaha in ilmihiisa isku korsanay ahay ilmihiina hadda ma korsan karo marka dantaas ay haysto marka waxaan ka rabaa dadka muslimiinta ee walaalaha ah inay ayaga daryeel iyo soo fidiyaan oo dhibkan ay ugu fiirsanin aan u baahanahay marka nin saas iska dhibaataysan ahay oo qaxooti iska joogo qaxootina maantana wax oo yaala ma lahan waa ogtihiin idinka dhanba marka daryeelkaas aan u baahanahay gacanteedana waa u jeediin in lahdiisi lahaa qabaa shaqaysan karo gaday lahaa taam ma ahan sinta waa ka jabanahay garabka waa ka jabanahay dhabarka waa ka jabanahay waa u jeediin marka walaalahayga muslimiinta in leesoo daryeelaan rabaa haddii ilaahay yiraahdo. Axmed in uu shaqaysta jiifka ka kaca isla markaana marxaladda uu ku sugan yahay uu ka baxa waxay dhakhaatiir u sheegeen kaliya in ay ka xigto in uu bixiyo qarash lacageed oo gaaraya $3,000 taas oo uu dhankiisa agoodi kari waayay keentayna in ummadda Soomaaliyeed uu soo hor fariisto si uu kaalmo uga helo. waxay dhaheen $3,000 $3,000 ma awood hataa $100 ma awood ma ihi waayo jeedama in shaqaysanaya lacagtaas awoodana ma shaqaysanaya ilmi yar waaye أنا ما أنت عن شقين كريم. هذا بركة يا وشقين علمي هذا أدي حنوستي وأدي جفته. علمي هدتك مسلمين ولا لا درس كأي وحسي يعني. بركة هرنا أنا وشقين وشقين يا ماله. بركة حدتك أول بحساب مس عن كرتا ميستاجي كرتا بالدقائق هذا سوى. والله برها أسكار الصعداء راشين كتجيف كان كأنا ما في إنسان كرو سهرتها تا علمها إذا قاعد عن سرير تقركنا. كأنت وحلف مكوجر تقدر سوى. أنت وحلف مكوجر تقدر وعساد والله في باب القرآن. أنت الذنب يطبرك. هيا. سنوي ها. أنت أصلا واحد دليل عافماد ما نهرين. دليل عافماد ما نهرين. marka inay dhibkan ina soo gaaraan oo isbitaal daryeel liigeeyo oo macnaha qarashkaas liiga dhiibo aan ka codsanaa qof kasto islaam ah taashin hadii la soo tuuro maanta $5 hadii la soo tuuro waxay ii tiraysaa macnaha daryeelkaas in la ii fidiyaan raba hadii ilaahay yiraahdo ka soo qaadkan ilaaha iskale. Mukhtaar Jimcaale oo ah diriska Axmed waqti xaadirkan uu ku sugan yahay gurigiisa ayaa dhankiisa dalbanaya in la soo caawiyo shakhsigan dhibaataysan si uu caafimaadkiisa u helo. ninkan walaalka ah oo diriska ah ehelka ah oo annaga nala joogo nala nool yahay isagoon kaar haysanin oo rafaadsan markaan aragnay ilmihii hataa qaar way ka kala tageen cidii hataa way ka tagtay maadaama markiin saas aragnay asoo dhibaataysan aan aragnay gurigan ka soo bixinay xaafadaheena keenay annagu nala nool yahay maasha Allah maanta annagiina wax aan u qaban karno malaha muslimaana uu soo wadanay guriga aan keensanay guri hataa hooy ma haysto marka insha Allah ta'ala biinillaahi kareem ilaahay idinkiisa ilaaha wax siiska ilaaha iskale wax soo qaadkana ilaaha iskale marka waxaan rabnay walaalaha muslimiinta ah adduunyada daafaha dacalaha meel kasta ayaga ay joogan waxaan rabnaa in nin alaala nin walba wax walba nin kasto tabartiisa wixii ilaahay ka soo qaado oo tabar ahba ninkan muslimka walaalka inaga inaan
ad soo caawisiin ad wax u soo qabatiin kaar ma haysto raashinka hataa annaga kaarkeenu nala cunihaaya ilmihii asaga uu dhalay qaar ilmo yar yar waay islaantii way ka tagtay way ka dhuumatay kismaaya u laabatay cunugta asaga dhalay iyo asaga ayaan annaga nala joogaa oo nala cunteen haaya ninka waxaa laga hayaa nin how garabkan ibir waay sinta ilaa iyo dhabarka wuu jajabay gaariyo ku jajabay waay meel walbana wuu tagay ilaa iyo xamar wuu tagay caafimaad u doontay wax daryeel hadda asaga maanta u haystana ma lahan wax walaal hadda meelahan u jooga ama u dhowna ma lahan dadkii hadda wax isku matartaba laba qaaban wax ma isu qaban karto marka waxa way anagana dadka xootiyanahay marka waxaan rabnaa maanta waxaan codsanaynaa codsi naga walaalaheena oo muslimiinta oo intiiba laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah shahaadanayso waxaan ka rabnaa ninkan walaalkeena oo jajaban inay wax u soo qabtaan ay wax u soo qabtaan intaasaan ka codsanaynaa walaalaheena muslimiinta si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed ay Axmed ugu fadhiyaa in ay soo garab istaagaan isla markaana marxaladda adag ee uu isaga iska maareyn kari waayay ay ka maareeyaan qarash iyo wax walba oo ay awoodaan ay la soo garab istaagaan maadaama noloshiisa oo hagaagta iyo duruufta hadda haysto uu ka baxa kaliya loo sheegay in ay ku xiran tahay in uu bixiyo lacagta aan soo xusnay ee ah $3,000 taasi oo dhankiisa aad ugu weyn uuna sheegay in $100 xitaa uusan bixin karin iska daa $3,000 aadan cabdi mucallim telefishinka 5 Somali TV xiriyaha qaxootiga Dadaab